guriga waxa ila joogay gabadha kala tiri qof aan soomayno salaaday nabigana caayay sallallahu alayhi wasallam ma joogi karaa wax ma ka cuni karaa ugu horeyn waxa muhiim ah inaynu ogaano ficilada noocaas oo kala ah waa ficil aad u foolxun waa gaalnimo inuu qofku nabiga caayo ilaahay caayo diinta caayo xeradii islaamka uu ka baxaya inuu salaada ka tago oo uu joogteeyana culimada islaamka in badan oo kamid ah ama qaybo kamid ah waxay ku tageen inuu diinta kaga baxayo ku gaaloobayo marka hadii ficil la sameyn la waa ficiladii u foosha xuma una waaweynaa dambi ahaan marka la eego marka xalku waxa weeye ugu horeyn adiga iyo ehelkuba inta isku tagtaan qofka noocaas shaydaan ba adeegsanaya oo ka dhaxadlaye ina balka reebtaan oo aydan tuurine badbaadisaan qofka isku daya oo lagu soo celiyo xirada islaamka inuu dib u ashahaato inuu salaada tukado inuu idin la mid noqdo waa Soomaalidu waxay dhahaan sankaaga oo qurmay lama gooyo marka sankaaga oo qurmay buu la mid yahay qofkii ka xumaaday ehelkii oo ummadaada ahaa taa horta waa waanada guud xagga sharci ahaan adigu haddaad waanadii u fidisay waxba aanad la harin xumaantana ku taageersanayn wixii gaf uu galaa waxba kaama saarna waxaad siinaysaa hadduu soo jiidayana ha ka jarin tana dadka qaarkood baa marka aad wixii aad siinaysay ka goyso xumaantiina kusii fogaanaya dagaalna sii bilaabaya marka ha ka goynin hadday taasi jirto laakiin haddii wixii aad siinaysay haddaad ka hakiso uu soo noqonayo wuxu tarayso taana waad ku day ducaduna waa muhiim oo inagoo samaynayna dadaalka dadkana ilaahay baa loo baryaao waqtiyada wanaagsan baa ilaahay loo baryaa ehelka iyo asxaabta iyo ummadaba qofkeena waliba leexsan waa waran inagu maqan weeye khatarta inagu inala dhex jooga dad buu inaga duufsan karaa marka waa loo duceeyaa lacalla allah yahdi waxa laga yaabaa inuu ilaahay ducada uba aqbalaba